الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلى بأن شرفت له ومحسنتين مرلبات maanta shirkeen wuxuu ku saabsan yahay maanta ay taariikhdu tahay 12 bisha 12aad 2018 shirkeen wuxuu ku saabsan yahay arrimihii maalintii bishan sagaalka ahayd mooshinkii xilka qaadista ahaa xildhibaanada golaha shacbiga u gudbiyeen gudoomiyaha iyo maaragtay wixii ka dambeeyay inay ummadda la wadaagaan xildhibaanadooda iyo ummadda Soomaaliyeed guud ahaan ay la wadaagaan iyo ku saabsan yahay sida la wada og yahay maalintii bisha sagaal ahayd waxaa gudoomiyaha golaha shacbiga loo gudbiyay mooshin ku saabsan madaxweynaha in maaragtay markii xildhibaanada waxyaalo badan ku dulqaateen arrimihii maaragtay ay ka soo jeediyeen loo gudbiyay kadib waxaa bilaabatay waxaa la filayay in maadaama golihii shacbiga ay keeneen waajibaadka dastuuriga uu yahay waxaa la filayay in mooshinka loo bandhamo nidaamka dastuuriga lagu socdo saas la filayay waxaa isu bedeshay in gudoomiyihii ilbaabadiis ciidamo la dhigo xildhibaanada ay u gali waayeen raashinkiis laga xanabay ayaa ka dambeysay maanta waxaa kale ku sii darsantay in xaruntii labaad ee golaha shacbiga ay lahaayeen villa Hargeysa xildhibaanada ay si rafaad ay ku soo galeen inay baabuurtooda la soo galaan loo diiday arrintaas xildhibaanada Soomaaliyeed aad iyo aad ay u dhibsadeen waxaana loo arkayaa arrin nidaamkii sharciga ahaa dawladnimada ku socotay dhaawac ku ah ayaana loo arkayaa marka barnaamij arrintaas ku saabsan golaha shacbiga maanta xildhibaanada meesha isu yimid markay arrimahaas fiiriyeen maanta shir u fadhiisteen waxayna soo saareen war saxaafadeed ku aadan aragtidooda ayagoo la wadaagahay ummadda Soomaaliyeed ay matalayeen sidaa daraadeed arrintan furahay aniga waxaan ku wareejinayaa war saxaafadeedka la soo saaray iyo ra'yigooda inay dhiibtaan xildhibaanada sharafta leh waxaan ku wareejinayaa si uu nooga akhriyo xildhibaan Cabdifatax waa mahadsantiin. bismillaahir rahmaanir rahiim halkan waxaan ka akhrin doonaa warmurtiyeedka ay xildhibaanadii mooshinka keenay ay soo saareen maalintii axad ee bisha 9 ahayd December 2018 waxa xildhibaanada golaha shacabka u soo gudbiyay gudoomiyaha golaha shacabka soo jeedin xilka qaadis madaxweyne jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo ay ku saxiixan yihiin xildhibaano golaha shacabka ka tirsan sida ku cad qodobka 92 farqadiisa koowaad iyo qodobka labaad ee dastuurka federaalka iyo qodobka 20aad farqadiisa koowaad ee xoroosaadka golaha shacabka xilka qaadis madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa soo jeedin kara golaha shacabka marka lagu eedeeyo madaxweynaha khiyaano qaran xadgudub culus oo dastuuri ah ama ku xadgudub sharciyada kale ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya intisaar xilka qaadista madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa golaha hor keeni kara ugu yaraan 3 dalool hal dalool xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya sida ku cad qodobka 75aad farqada 6aad ee xoroosaadka golaha shacabka marka soo jeedin mooshin la keeno gudoomiyaha golaha shacabka waa inuu hubiyo sharcinimada mooshinkaas isla marka loo dhiibana go'aan ka gaaro qabashada soo jeedinta mooshinka loo soo gudbiyay gudoomiyaha golaha shacabka isagoo fulinaya qodobkan dastuuriga iyo xoroosaadka golaha shacabka ayuu ka gudoomay xildhibaanada golaha shacabka soo jeedintii mooshinka xilka qaadista madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya haddaba waxaan u soo jeedinaynaa madaxweynaha eedeysan ee mooshinka xilka qaadisku ka yaalo arrimaha soo socda kow inuu u hoggaansamo dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo shuruucda kale ee dalka u yaala laba inta uu mooshinka xilka qaadista ay golayaasha baarlamaanku go'aan ka gaarayaan in madaxweynuhu aanu samayn karin
qodobada soo socda. kow, in wax heshiisa aanu geli karin, in aanu xil magacaabi karin, cidna ka qaadi karin xil, in aanu aadi karin shirar uu ku matelayo dalka iyo dadka Soomaaliyeed. sida ku cad qodobka 57aad farqadiisa saddexaad ee xoroosaadka, soo jeedin mooshin xilka qaadis ee madaxweynaha laguma faafin karo golaha iyo meel kale toona ka hor maalinta ay furmayso dooda soo jeedintaas, waxaana maalintaas loo qaybinayaa golaha oo keliya. sidaas daraaddeed xogayaha golaha shacabka xaq uma laha inuu sheego ama dhex galo magacyada iyo sharciyada mooshinka laga soo gudbiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee gudoomiyaha golaha shacabku qabtay, xaqiijiyeyna inuu waafaqsan yahay qodobka 92 farqadiisa 1 iyo 2 ee dastuurka federaalka Soomaaliya. xogayaha goluhuna horey u cadeeyay inuu qabtay una diiwaangeliyay soo jeedinta 9 Disembar 2018. sidoo kale waxaan rabnaa inaan halkan kula wadaagno ummadda Soomaaliyeed ee aan ku matalo golayaasha sharci dejinta waxa ay tahay shaqada gudoomiye ku-xigeenada golaha shacabka oo maalmihii la soo dhaafay warbaahinta ka akhriyay waraaqo aan waafaqsanayn dastuurka iyo xeeroosaadka golaha shacabka. sida ku cad qodobka 8aad ee xeeroosaadka golaha shacabka, xilka gudoomiye ku-xigeenka golaha shacabka gudoomiye ku-xigeenka marka uu joogo gudoomiyaha golaha shacabku, gudoomiye ku-xigeenadu marka uu joogo gudoomiyaha golaha shacabku waxa ay qabtaan oo kaliya wixii gudoomiyuhu u diro, xaqna uma laha inay ka hadlaan shaqo uusan gudoomiyuhu u igman. marka hore waxaan ka raali gelinaynaa gudoomiyaha golaha shacabka iyo shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan hadalladii gafka ahaa ee ka soo yeeray gudoomiye ku-xigeenada golaha shacabka ee aan sharciga iyo dastuurka waafaqsanayn. waa nasiib darro aada u weyn inay sidaas u dhaqmaan gudoomiye ku-xigeenada golaha shacabka ee laga rabay inay buddig u noqdaan ilaalinta dastuurka iyo xeeroosaadka golaha shacabka. ugu dambeyn waxaan ugu baaqaynaa ummadda Soomaaliyeed inay garab istaagaan saraynta sharciga kana hor yimaadaan habdhaqan kasta oo dhiirigelinaya keligitalisnimo iyo ku tumasho sharci. waxa kale oo aan rabay inaan ku daro arrintaa gudoomiyaha golaha shacabka waxaanu rabnaa inaanu halkan ka cambaarayno xayiraadii lagu soo rogay oo ay ku jirto in cuntada oo uga iman jirtay bannaanka laga gooyo isaga iyo askartiisaba, in laydhka laga damiyo oo si joogto ah looga damiyo, mararka qaarna loo sii daayo. waxaa kaloo aan cambaaraynaynaa in dhaqaaqyadii dadka u imanaya ama uu isagu dalbado ama booqasho ugu imaanayay ee uu raallida ka yahay in laga hor istaagay oo aanay u suuro gelin in ay u tagaan. marka in dhaqdhaqaaqa gudoomiyaha oo ah qofka labaad ee maamus ahaan qarankan ugu sarreeya la xayiro waxay la mid tahay in uu gudoomiye ku-xigeenka la isku dayayo, inkastoo aanay sharci ahaan suuro gelin, in la isku dayayo in xabsi guri la geliyo. taasina ma aha suuragal, ma aha, sharciguna ma aqbali karo, annana ma aqbali karno. ummadda Soomaaliyeedna waxaan rabnaa inay jawaabo degdega ka bixiyaan arrintaas oo ay dareenkooda ku muujiyaan sida ay uga soo horjeedaan in sharciga la baarmado. madaxweynuhu wuxuu madaxweyne ku yahay ilaalinta dastuurka iyo shuruucda. haddii uu isagu baal maro shuruucda iyo dastuurka dalka u yaallana madaxweyne ma noqon karo. waa ka baxay. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. anigoo ah xildhibaan xasan cabdi ismaaciil ka tirsan golaha shacabka ka mid ah guddiga mooshinka geeyey haddana aragtideeda ka dhiibanaya halkan waxaan rabaa inaan ka caddeeyo shacabka ummadda Soomaaliyeed qodobada soo socda. qodobka koowaad, eedeysane madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo laga bilaabo bishii 9keeda waa eedeysane siduu qabo dastuurka qodobkiisa 92. waxaa laga geeyey impeachment khiyaano qaran ah. wuxuu ku eedeysan yahay inuu jebiyey dastuurka dalka, inuu midnimada ummadda Soomaaliyeed halis geliyey, inuu anti federaal yahay dowlad goboleed burburinayo,
inuu muwaadin Soomaaliyeed dhiibay qodobadaas oo ah qodobo eedayn aad u culus impeachment-gaasi loo geeyey gudoomiyaha baarlamaanka xoggiisa guud uu la fadhiyey sida sharciga waafaqsan ayaa tiradii looga baahnaa in ka badanba loo tiriyay iyadoo meesha taala kadibna waa la istaamgareeyey arkiifyada la geeyey waxa intaas ka dambaysa wax u yaala oo shaqo ah oo hooyo guud u yaala oo ilaha abuuray malaha waxa u yaala kali ah processkii la martiin lahaa iyo si loo geyn lahaa golaha guud ee baarlamaanka loo geyn lahaa loogana doodi lahaa impeachment-gaasi laga keenay madaxweynaha la eedeeyey maxamed cabdullaahi farmaajo intaas kadib saan ku naqaano qannada aadka u foosha xun aan ku barannay 2 sano ee la soo dhaafay hoggaanka dalka hadda ka jira waxay bilaabeen tallaabooyinkii ay ku soo caanamaaleen ay ku kici jireen falalkii ka baxsanaa dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo ku tumashadii sharciga waddankan u yaala iyo sareynta sharciga waxay bilaabeen siday ula dhaqmeen gudoomiyihii hore ee Jawaari inay ula dhaqmaan gudoomiyaha cusub oo ay amraan inaan loo tagi karin la soo booqan karin xildhibaanadiisana aynu u tagi karin waxay bilaabeen inay culays saaraan xildhibaanadii impeachment-ga saxiixay waxaan caddaynayaa halkan ka caddaynaynaa cid lagu qasbay impeachment-ga marka la saxiixay ma jirin dhammaan dadka saxiixay waa ay saxiixeen markii la geeyey oo la qabtay kadibna impeachment-ga sidaas ayuu sharci ku yahay xeerkan wuxuu qabaa inaan laga bixi karin qofku wuxuu u bixi karaa kaliya markii la codeynayo mar haddii la qabto wixii intaas ka soo hara waa foodo iyo nafl caarignimo iyo qariska tuurnimo weeye iyo sharciga la diidan yahay intaas waxaan uga gudbayaa falalkii ka dhashay ee labada guddoon ay ku dhaqmeen hadduu guddoomiyaha golaha shacabka uu joogo labada guddoon waxay qabanayaan inta guddoomiyaha shacabka uu diro waxay la mid yihiin xildhibaanada caadiga waxay kala duwan yihiin kaliya awaamirta guddoomiyaha golaha shacabka ay qaadanayaan wax amara ma bixin karaan wax tallaabo ma qaadi karaan wax warqada ma soo saari karaan wax shir jaraa'id oo qaban karaan guddoomiyaha amrina ma samayn karaan taasna waxaan rabnaa inaan shacabka Soomaaliyeed u caddeeyo haddii kala dambeyn nidaam la ilaalinayo haddii meeshaan isku jabhadeyn tahayna dad danba la isku jabhadeynayaa qodobka kale ee muhiimka ah aan rabo inaan ka hadalno waxaa weeye inaan u caddeyno shacabka Soomaaliyeed impeachment-gan taagan yahay haddii madaxweynaha impeachment-ga laga geeyey oo khiyaano qaran ah ma dhoofi karo shir caalami ma geli karo heshiis caalami ummadda Soomaaliyeed ma soo geli karo dekraato ma soo saari karo xil cid kama qaadi karo xil cid ma dhiibi karo wax awaamir ah uu fulin karaa ma jiro sidoo qabo dastuurka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliyana madaxweynuhu waa eedeysan ku eedeysan khiyaano qaran arrimahaasi ayaan rabnaa shacabka Soomaaliyeed inuu caddeeno baarlamaanka Soomaaliya waa sidiisii waajibaadkiisa dastuuriga ayuu gudanayaa cabsigelin iyo cagdugleyn iyo ciidan la soo urursado iyo dadkoo la handado iyo xildhibaanadii impeachment-ka saxiixoo la dhaho tallaabaa idinka qaadayaa ama siyaabo kale loo handadana ma soconayso waxaan u sheegaynaa international community-ga beesha caalamka shacabka Soomaaliyeed dal ujeed meeshay joogaan annaga waxaan ku taagannahay shuruucdii dalka ciddii diidanna waa cid in la marsiiyo processka diidan horay ayay u sameeyeen lagama aqbali doono waxaan caddaynaynaa in uu yahay maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweyne eedeysana ah laga soo bilaabo 9kii bishan 2012 markii la geeyey 5tii galabnimo impeachment-giisii khiyaanada qaran ah waan mahadsantahay بسم الله الرحمن الرحيم goobta maanta waa taariikhdu waa 11 bishii 12aad 2018 waxaan joognaa villa Hargeysa waxaan nahay xildhibaano kor u dhaafayo 70 kana soo horjeedo dibindaabiyada iyo dhibaatada lagu hayo baarlamaanka Soomaaliyeed goobtu waa villa Hargeysa oo ku celinayaa waxaan ku soo galnay dagaal waa xafiiskeenni iyo meelihii loogu talagalay inuu dastuurka iyo qaranka Soomaaliyeed loogu shaqeeyo sareynta dastuurkan loogu shaqeeyo waxa ka shaqeynaya dibindaabiyadaas waa golaha fulinta iyo qolo lagu sheego guddoon ku xigeen laakiin aan xaqiiqa shaqo ka qaban doono insha Allah aan ka saari doono baarlamaanka qaybintiisa iyo dhibaateyntiisa ay mar walba maaragtay u taagan yihiin aan maaragtay shaqo maaragtay nidaamiyan ah aan ka qaban doono insha Allah aan gacanteenaan ku saarnay codkeenaan ku saarnay dibna aan uga qaadi doono mas'uuliyad darrada ay muujinayaan darteed iyo baarlamaanka ay qaybinayaan
waxaan u soo galay kelmadaha u qaatay hadalka nuxurkiisii bareeskaa lagu sheegay war murtiidkaa lagu soo saaray xildhibaanadii kalena way kaabeen madaxweynaha uu dacweysan yahay waa sax waxaan ku raacsanahay xildhibaan xasan oo iga horreeyey dhaqdhaqaaqiisuna uu iska yaraan doonaa dabcan inta arrintan meel laga saaray waxaan rabaa inaan xoojiyo oon baaq u diro maxaa la yidhahdaa ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed saraakiisha saraakiil xigeenta dableyda qaranka Soomaaliyeed inaan baaq u diro ay joojiyaan awaamiirta guracan ee loo dhiibay inay ka hor yimaadaan annagu waxaan u taagannahay sixitaankii baarlamaanka waxaan u taagannahay inaan difaacno ummadda waxaan u taagannahay inuu sharcigu sarreeyo fadlan amar khaldan ha qaadanina amarkii khaldan amar sax haddii lagu siiyo ood noo sheegto waa fahmi karnaa waana kaa tegaynaa laakiin albaabkan ma geli kartid xafiiskan ma fariisan kartid halkan xildhibaan waa laga mamnuucay waxaasoo dhan waa ceeb iyo fadeexo qolada idinka sarraysay oo amarkaas idin siisayna way khaldan yihiin marka baaqayga waxaan ku celinayaa codsina iga ciidamada inay ogaadaan sarraynta sharciga in xildhibaan aynan korkiisa taaban karin in xildhibaan aynan amri karin in xildhibaan aynan qori kusoo taagi karin in xildhibaan meel ay u diidi karaan oo dalka ka reeban aynan jirin intaasaan rabaa inaan u sheego garabna ay nagu siiyaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi بسم الله الرحمن الرحيم waxaan rabaa inaan ku darsado wax yar warqadan war-saxaafadeedkan uu soo jeediyey xubnihii keenay eedaynta madaxweynaha sida loo sheegay madaxweynaha markii la eedeeyey kabacdi communitigiisa wuxuu u dhacayaa hoos sida loo sheegay dhaqdhaqaaqiis waa yaraanaya awaamirtiisana waa yaraanaysaa sharciga siduu qabo waxaan rabaa kale inaan ku daro hay-adaha maaliyadda iyo hay-adaha amniga maaliyadda dalka laga qaadayo ummadda iskale waxyaalaha oo ay ka soo bilowdeenna waxaa ka mid ahaa maaliyadda la luursaday oo guddiga maaliyadda baarlamaanka uu keenay ayaa soo kicisay waxyaalaha badan iyadoo qaldaad badan hor u jireen haddana waxaanu u maqaalaa mase aan maqlaynaa in maaliyaddii si khaldan loo isticmaalayo oo weliba xildhibaanada la leeyahay intaasaa lagu siinaya ka noqo mooshinka waxaan soo jeedinaynaa hay-adaha maaliyadda waa laydugula xisaabtami doonaa dakhliga idin soo galay meeshaad ku bixiseen hadhow cid ay ka bixinaysa hebel ba ay amrin ma jiro waxaa miisaaniyaddaas ku astaysan wax ka baxsan ninkii bixiyo asagaa mas-uuliyaddiisa qaaday dadka aruuriyo dhaqaalaha ayagana sidii loogu talgal waa inuu xareeyaan kama fiicn idiin wiilashii laga soo qabtay dekadda nin kasta oo ku tagrifala waa la daba taagan yahay guddiga maaliyadda wuu dabageli doonaa haddii ilaha yidhaah arrintaas waxaan rabaa inaan uga digo shaqaalaha rayidka iyo mas-uuliyiinta maaliyadda qaabilsan inay arrintaas ka digtoonaadaan taas waa middaas dhinaca amniga markaa usoo noqdo waxaa nasiib darraa gurigii lagu magacaabayay muxuu ahaa villa Soomaaliya inuu maanta noqday guri nin keliya leeyahay ninkii intaan codkooda ku yimid inuu awaamiir qaldan ka bixiyo uu yidhaahdo intaha ha la xiro motooraha la soo qaado hal alxaamo yuusan soo gelin nin muxuu ahaa mooshinkaa saxeexay nin guddoomiyaha usaxday yuusan soo gelin inay yidhaahaan aad baan uga xunaa warnimo iyo sharciga waxaa loo dejiyey waxaa waa labada isdhaqin ku kala baxdo haddii la soo eediyey madaxweynaha wuxuu xaq u leeyahay inuu isdifaaco inuu sharciga hortiisa isku difaaco inuu abuse sameeyo oo sharcigu ku tunto waxa lagu soo eediyey ay ka mid tahay inuu yacni ku tagrifalaayo sharcigu yeelan lahaa inuu baabi'inayo ayaa lagu soo eediyey waxaana markhaati u ah waxaa ka dhacayo villa Soomaaliya waxa ka dhacaya markhaati u ah waa maragma doonto nin kastana wuu imaan karaa Soomaali ah oo arrimaha Soomaaliya danayada Soomaaliya wuu imaan karaa wuu arki karaa heer waxaa la joogaa qofka bini aadamka guddoomiye ninkii xubintii labaad oo dalka markii asaga ambishada laga keeno xilka la wareegi lahaa in la yidhaha raashin looma geyn karo biyaha laga gooyo korontada laga gooyo ciidankiisi muxuu ah waxba yaan la siinin waa aad arrin u foolxun waa arrintaas
waa dhaqan xun waa dhaqan gumaysi waa dhaqan dictatori waxaan leenahay laga digtoonaado wixii dhacay waa dhaceen hala dabta caano daatay dabadooda la qabtaa caanaha waa daateen dabadooda la qabtaan leeyahay waxaan u aqalcelinaynaa mas-uuliyiinta inay taas ay ka waantowaan tan labaad waxaa nasiib darro ah oo aan rabaa halkeenaan ka caddeeyo una tacsiyeynayaa xasuuqa hadda soo gaaray oo ka dhacay magaalada baydhabo oo shacab ra'yigooda cabirayo ciidamo loo adeegsaday qaarna muxuu ah la dhaawacay qaarna dhaawacood isbitaalka ku dhinteen arday la sheegayo hadday arrintaasi jirto waa arrin aad iyo aad nasiib darro ah waxayna khusaysaa dadkaas ra'yigooda ay si saliim u cabirayaan sharcigaan u qabo u banaynayo ninka si nabadgelya inuu sharciga muxuu ahaa u cabiro ra'yigiisa sharciga halkaa waan u mudaaharaaya muxuu ahaa shacabaan mudaaharaadaya xildhibaanada caynaya wax umiyata qowlka ka mid tahay lama dilin lama cadaabin waayo kuwaas loo cadaadinaya ra'yigooda cabiraya maxaa loo cadaadinaya arrintaa ayada ah nin alla ninkii ka dambeeyey waxaa ballan nagu ah inaan maxkamad la imaan doono in maxkamad la soo saari doono shacab iskiis u banaan baxayo cidduna waxa ka sheego lama hoostaagi karo lama xasuuqi karo lama caburin karo waqtii la iscaburinayo waa dhaafteen nin walba sharciga ka sarreeyay shacabkii meeshaas wax ku noqdeen waa u tacsiyeynayaa waana muxuu ahaa aad baan ooga xunnahay anigoo ku hadlaayo magaca xildhibaanada halkan fadhiyo ee soomaaliyeed aad iyo aad baan arrintaas uga xunnahay ugala soo horjeednaa waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ku celinayaa mas-uulka laga keenay impeachmentiga iyo ra-iisul wasaaraha iyo taliyaasha ciidamada ficilada guracan oo villa soomaaliya lagu soo rogay ha laga daayo taa waa midii la soo dhaafay waa midii laga soo gudbay dalka meeshuu ka mid yahay loo celini hore aan u soconno aan xisaabtanno aan isxisaabinno aan isqancinno nin walba wuxuu qabaa ninka kale halka ka dhagaysto aad iyo aad baad umahadsantihiin shacabka soomaaliyeed waxaan ka raaligelinaynaa dadka sida xun u fikirayo sharciga diidan keligood noolaashayaasha ah u baahan waxa ummadda ay lahayd inay keligood meel dhigtaan waxyaalaha ay ku hadlayaan waa ka raaligelinayna ma la qabno waxaan qabnaa in la xisaabtamo waxaan qabnaa in wax lada cuno waxaan qabnaa in wax la saxo waxaan qabnaa in hor loo socdo waxaan qabnaa dalka in nabadgelyadiisa iyo amnigiisa iyo horumarkiisa la gaarsiiyaan qabnaa ciddii diidan waa cidda diidan in lala xisaabtamo waa cidda diidan in sharciga ay ilaaliso kuwaasna waxaan leenahay allah naga qabto aad iyo aad u mahadsantihin wasalaamu calaykum بسم الله الرحمن الرحيم marka hore ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waa salaameynaa annagoo ah xildhibaanadii mooshinka soo jeediyay guddi ka mid ah waa laga hadlay ahaanshaha mooshinka iyo sharciga qodobadu ku tirsan yahay qaybaha kale oo aan rabaa aan taabto waxay tahay horta hadda sida aad arkaysaan annagoo xildhibaano ayaa saxaafadii isku bedelnay annaga kaamirooyinkeena duubayna saxaafadii xooga meesha kusoo gelinay waa la diiday annagaana la garaacay gacan loo qaaday meesha lagu samaynayana waa villa Hargeysa waa meeshii golaha shacabka ay lahaayeen qodobka 18aad ee dastuurkan aan ku dhaqanno ee madaxweynaha hadda xilka haya aan ku siinay kursiga wuxuu sheegayaa si buuxda xurriyatul qowlka qofka iska dhaafe hadda immunity-da la xildhibaanka ah ee qofka shakhsiga caadiga ordinary-ga ah in uu si buuxda u leeyahay aragtidiisa inuu jeediyo aan loo iqaabi karin hadda waxa muuqata waxa ugu horeeya oo ugu liita ah in aragtidii xildhibaanada iska dhaaf qofkii kale shacabka ah aragtidii xildhibaanada la diidan yahay villa Hargeysa aan xoog ku soo galnay mana ahan wax dastuurkan ku yaala mana ahan dimuqraadiyadda aan ku dhaqmayno horta madaxda qaranka waxaan uga digaynaa buuggan inay ka dhax baxaan iyo kitaabkii quraanka ay ku soo dhaarteen in waxa buuggan ku yaala ay ku dhaqmi doonaan haddii buuggan laga dhax baxo waa ognahay xalano dhexdeeda madaxweynaha qaranka xasan sheekh oo madaxweyne ahaa ayaa ku wareejiyay xilka qori aka loogama qaadin buuggan ayaana xukuumadda aan iskaga qaadnay kaas haddii lagu kalsoonaan waayo oo amaro la soo saaro awaamirka la isdul dhigo waxaa ka imaanaysa cawaaqib xumo mideeda kale xogayihii guud ee baarlamaanka waa shaqaale civil servant ah xildhibaano mooshin soo qoray xogaye guud gudoomiye u amray oo faylkii geli leeyay oo faylkii geliyay isaga faylkii intuu geliyay koobigiisa noo soo celiyay maalmo ka hor ay ahayd hadda saaka xildhibaano kale oo annaga nala mid ah oo inay amraan
oo la leeyahay waraaqo la soo daawacay ahaanshaheedana aanan garan karin lagu sheego mooshinkii baa buray wakaaladii wararka ee qaranka canshuurtii ummadda Soomaaliyeed laga soo qaaday loo isticmaalay fariimo in lagu soo diro ummadii Soomaaliyeed lagu manhabaabiyo oo la leeyahay mooshinkii baa buray golihii wasiirada hadda isku bedeleen mooshin burid iyo qabashadiisa hadda ay faafiyaan marhabaabinta intaas la eg ummadda Soomaaliyeed ma mudna in dhaqan lacagtoodii saas loo isticmaalo gobolka Banaadir gaar ahaan canshuurtii laga soo qaaday oo aan ognahay dhibaatada dadka ay ku sugan yihiin in loo isticmaalo maanta xildhibaanadii ay soo doorteen in madaxtooyada loo diiday ay soo galaan golihii shacabka ay soo dhex galaan ciidamadoodii oo annaga caruurteena ahay naloo adeejiyo nala ka adeejiyo annaga aan askartii annaga isku wareerno aan gacan in iskula tagno nala gaarsiiyo sharciga maaha aan xurmayno sharciga madaxweynaha impeachment laga keenay waa in uu hoggaansamo dastuurka waa inuu aan ku meeraysan darbiyada sideeda ma aha baasha in lagu warwareejiyo habar dhaliweys aleen ku waalatay ma saxda laga aado sharci buu leeyahay mooshinaan ka keenay madaxweyne waa ku soo dacweynay su'aalan ka qabnaa si sharaf leh xurmad leh oo garbax waxa laga yaabaa inaad naga garhashid meesha hoolkan isku nimaan su'aasha lagu weydiinaya waa sahlantahay jawaab bay leedahay malahan laakiin qori aka in isku noqonayo ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa aragtidooda ay qabaan inaanay ka xishoon ayna ka cabsan gaar ahaan gobolka Banaadir in ay si dhaqsi ah uga dhiidiyaan ayna muujiyaan lacagtoodii qaabka loo isticmaalay inayna ogoleen marka waan u sheegaynaa odayaasha dhaqanka mas'uuliyad kale oo gaar ah ka saaran bulshada siyaasiyiinta haday isqabsato odayaasha dhaqanka waa marjaca loo laabto waa in ay sida dhabta u hadlaan ummadana u sheegaan madaxda qaranku haday qaldan tahay waa qaldan tahay xeyndaabka dastuurka lagu soo doortay kama dhax bixi karaan haday ka dhax baxaan malaa'iga ma ahan waa laga qabanaya marka waana mahadsantihiin dhammaan ummadda Soomaaliyeed bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa xildhibaan gulada cadarsage kana mid ah xildhibaanada mooshinka madaxweyne Farmaajo hadda noo eedeysan ilaa inta sifada dastuuriga uu mooshinkaasi ku meel marayo anuu laba arrimood ma raba shacabka Soomaaliyeed inaan xaqan uga jawaabo oo ah mid nimanka gudoomiye ku-xigeenada ah ee golaha lagu hogaamiya oo runtii aanu sharaf iyo ixtiraam weyn u hayno haddii wixii shalay iyo daraad ay tiifiyada mariyeen dib uga noqon waayaan oo raaligelin ka bixin waayaan anaguna ixtiraamayno gudoomiye ku-xigeenku waa xildhibaan haddii gudoomiyaha oo joogo wixii uu u diro ay farmi waayaan anaguna ixtiraamayno gudoomiye ku-xigeen noo ahaan maayo anu taasanu sheegno waxay sharaf ku leeyihiin intay guddoonkooga ixtiraamayaan hadday gudoomiye maxamed mursal ka hor yimaadaan anaguna gudoomiye ku-xigeen wax leedhaa ugu yeedhi mayno ahaana maya golahan qof kastaaba cod siman buu ku yimid kursigiisa nin walbaaba meel buu kala yimid waxa lagu wada joogaa waa sharcigaas dastuur iyo xeer hoosaad baan ku wada joognaa laakiin gudoomiye ku-xigeenno la khalday oo hur u baahan runtii maanta in loo nasteexeeyo oo golahoogii la raba inay burburiyaan baan rabaa maanta dadweynaha inaan u sheego war ka daaya war golihiina ka daaya war golahan waa golihii idinka oo sharaf leh oo gudoomiye ku-xigeenayaal sharaf leh oo xildhibaana ah oo xasaanad leh ayaad shakhsiyaad suuqa ka madax ka dhigteen kuwii shalay aad keenteen u hanuunsaminaya golahan intiisa kale weyna idinla joogto u hoggaansama annagaa guddoon idinka dhigannay nala shaqeeya guddoomiyihiina ixtiraama talabaad waxay rayo caalamka iyo shacabka Soomaaliyeed ku maran habaabinayaan waxa la dhahaa maxkamad dastuuriya madaxweyne Farmaajo annagu waanu doorannay horteedaa lagu dhaariyey xilka loogu wareejiyey maxkamad dastuuriya oo la mariyay habeerata ma jirto shacabka Soomaaliyeed yaan la khaldin maxkamad dastuuriya inooma dhisna golaha adeeg garsoorre inooma dhisna xukuumadda iyo fulinta joogtaana mar walba la dagaalan iyagaa la dagaalamaya hadda may sii deen xubnihii ka mid noqon lahaa golaha adeega garsoorka sidaas daraaddeed bacdamaan madaxweynaha marka hore maxkamad dastuuriya dhaarin bartii aanu ku siinay codkumaanu kaga qaadanay hadduu xubno ku filan haystana miidaanka ha yimaado sanduuqa ha aamino haddii kale qoli caaradii kuwii ka horreeyay way ka qaxeen yaan xamar ha ka qaxin baan kuleeyahay madaxweyne anu waxaan kuleeyahay waxaa kuu fiican wanaagga Soomaali nabad bay ku wada joogi kartaa nabadda qaado sanduuqii lagaa doortay oo golow haddaanad ogolaanin cawaaqib xumadeeda haddaan kuusii sheegnay anagu had shacabkana mid baan u sheegaya shacabka Soomaalidu waa dad sharaf dhaqankii kacaanka ahaa guulwadayaasha iska daaya dadka degmooyinka inta laga soo ururiyo yaan bacadkaa lagu dilin magaalada qof kastooba qofaa kugu matala golaha dadkaaga warayso golaha wax lagu dhexeeyo ogow yaanay dadka Soomaaliyeed noqon dad si fudud loo
karaamadooda loo rido shalay dad aad u tiro yaroo waddooyinka marayaan arkayay waa wax aan aad ugu xumahay annagaa golayaasheedii ku matelnana aamina annagu waxaan idinku dhaqanaa waa dastuurkaas madaxweynuhu waa baalmaray dalkeennii xabashi buu siinayaa shisheeyuu siinayaa waxaanu rabnaa inaanu ogaanno wax kastuu gelay waa waxaad annaga noo doorateen intaasaan u sheegaya shacabka soomaaliyeed waan idin salaamaya بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن سلام يا أمة الصومالية وحن سلام يا ضمان أمة الصوماليات ملك استيجوبت أدوم وينها جارهان أمة الصوماليات وكنا الوطن كالصومالية وحاميشة ما سوق نمت أوكي وجابيها وملينا وحن ما أنت سيدا وقتيها waxaan maanta meeshaan isugu nimid oo villa Hargeysa ah howlka weyn xildhibaano ka soo jeedo golaha shacabka xildhibaanadaasoo xalay ilaa iyo maanta u taagnaa arrinta dhibaatada soo korodhay oo ah gudoomiyihii oo dhaqdhaqaaqiisa la xadiday oo is arki weynay gudoomiyaha golaha shacabka oo gurigiisii hadda u eg nin ku xaniban meesha oona ah sideedaba u ekyaana dhihine arrintaas wax la qaadan kara ma aha ummadda Soomaaliyeed waxay fiirsanayaan waxyaabaha hadda ay u jeedaan aadan uga xunnahay wadankii oo hadda sii galaayo mugdi madow loo wado oo meel xun loo wado taasna ma fiirsan karno waxaan u adkaysan weynay in arrintan lagu wado wadanka ayaan u qaadan weynay golahii shacabka oo la afduubay oo la iska xirtay xildhibaanadii in meel lagu kala ooto oo hoteelada inta loogu yeero hadda waxay maraysaa in guri loogu yeero oo meel lagu aruuriyo oo qaarkood lacag la siiyay qaarkood jagi iyo wixii loo ballan qaaday ma naqaan jagada xagee ka helaysaa xildhibaanow hadiiba golaha shacabka la xiray golahaasaad ku tahay xildhibaan haddii golaha shacabka la xiray lagama xirin dadkan hadlaayo xildhibaanadan soo istaagay oo u hadlaayo ummadda Soomaaliyeed dhibaatada ku soo wajahan iyo dhibaatada golaha shacabka loola damacsan yahay oo la leeyahay la yiri shaqadaba ma soconayso waliba warka ka dambeeyo soo baxay waa ka sii foolxun yahay oo aan wali ma akhrinin warqadiisa ka soo baxday la sheegayo waxa la leeyahay in wax dhaqaaqay wax shaqeynaya malaha iyo maaliyad iyo wixii wax kasta laga hadlay marka waxaan aad iyo aad uga xunnahay waxaan dhacaayo wax loo dul qaadan karana ma aha mooshinkan la keenayna madaxweynaha waxba yuusan ka cabsanin marna albaabada yuusan xiranin anaga xalayto albaabkaas inta naloo diiday darbiyaashan ka talaabsanay oo xalay oo dhan magaalada dhan isdhex maraysay anaga gudoomiyahana waa u tagaynaa waana is arkaynaa meel kastana waa tagaynaa gudoomiyahana waa xor waaye ma xirno qof xiri karana malaha haddii wax la xiraayo waa la ogyahay qofka la xiri karo gudoomiyaha baarlamaanka wuxuu yahay madaxweynaha ku-xigeenkiisi waaye waa ninkii labaad ee kursiga madaxweynaha hadda mooshinka laga keenay booskiisa waxaa fadhiya amaamiirta bixin lahaa waa gudoomiyaha marka sheekada waxay isu bedeshay dictatorna wadanka mar hore ka soo baxay dictator loo noqon karo Soomaalina u noqon mayso laakiin dhibaatada soo socoto aan ka walwalsanahay oo inteena meesha isugu qayna keentay haddii Soomaaliya sidan hadda lagu wado waxay noqonaysaa in loo noqdo gadaal because nin walba wuxuu ka soo jeedaa reer Soomaaliya waxay ku heshiisay 4.5 hadalla horaa jiray oo la yiri 4.5 inaan baabi'iyaan rabaa hal nin ma baabi'in karo madaxweynuhu haddaad aaminsan tahay 4.5 ma baabi'in kartid adigu kursiga aad ku fadhid beel baad ugu fadhidaa maxamed mursalna gudoomiyaha baarlamaanka beel buu ugu fadhiyaa ra'iisul wasaaraha beel buu ugu fadhiyaa gudoomiyaha aqalka sare beel buu ugu fadhiyaa qof kasto beel buu matalayaa annaga kuraasta aan ku fadhino beelaa matalaynaa mana qaadanayno in gudoomiyihii la yiraahdo mana soo bixi karo mana loo tagi karo gudoomiyaha adigu ma xaniibi kartid waxaad samaysanaa adigu mashaakil aad qoorta gashanaysid oo adigu kugu soo qool leh waay adduun weynahana waa laga fiirsanayaa international community way ku og yihiin wadankan Soomaali way tashanaysay Soomaali way isfahantay Soomaali way isu timid hadda dhibaato kama taagno laakiin waxaad gadaal ugu celinaysaa in belbel la isu dagaalo oo hadda nin walba waxa tiri xalayto ciidamo intay oo labisan intay hor istaagaan ayna dhahaan ma gali kartiin amar baa nala siiyay yaa idin siiyaan dhahnay waxay yiraahdeen madaxweynaha amarka soo baxay madaxweyne markaad xildhibaanada amarkaaga oo qori aad nagu soo taagtay oo aad amar ku bixiso askari hala garaaco aad tiraahdo askari xildhibaan garaacay markuu yimaado
saad ku fadhinaysaa meesha ma fadhin kartaa ma fadhin kartid waxaa kaa qaldamay annagaa ku soo dooranay kursiga annagaa kugu fadhiisaday haddii aad tiraahdidna xildhibaan ha la garaaco adiguna meesha ma fadhinaysid taas ogow gurigaagay kugu imaanay xildhibaanka ninkii garaacay adoo gurigaa kugu soo galaa kugu garaaca berri adoo qaxayaan lagu arkin waa la wada qaxi doonaa hadday saan ku socoto madaxweyne gadaal ha noo naqin 30 sano ayaa la soo rafaaday Soomaaliya waa isku dhibtootay way heshiisay hor waxaa loo baxay oo qurux iyo xurnimo loo baxay Soomaali way tashatay gacan shisheeye ha nagu celinin hadda waxay sheekadu taagan tahay inuu shisheeyana soo kala dhex galo Soomaali waa isxalin la adahay Soomaaliana arrintaas u sabab ah madaxweyne markii muran yar dhaco albaabkaada hadaad xiratay madaxweyne waa ku arki weynay xildhibaanada iridaad ka xiratay intaa hoo jeeraan ballan soo qabsaday waan geli waayay iridaad 100 jeer hadda wax laga rabo malaha waxaan ka rabno malaha golaheena shacabka faraha nooga qaad adigu meesha laga wacay mooshinkan ka soo jawaab meesha gudoomiyahan aad xanibtayna waa inaad ka qaadaa taakadaas albaabkaas aad furtaa haddaad albaabkaas bila Hargeysa bila Soomaaliya aan dhahay furweysid baabuurta jidkan laga soo dejiyay waxaan soo lugaynay nus kiiloomitir ku dhawaad haddii aad taas aad wax ka bedeli weysid albaabkan aad xirtay aad furi weysidna madaxweyne wixii ka yimaado adaa ka mas'uul ah annaga Soomaali intaan waa la tashanaya Soomaali way tashanaysaa intaasaan uga baxay. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.